Soo dhawaada, magacaygu waa Sihaam. Waxa aan jiraa 25 sano. Waxaan halkan u joogaa in aan kaga sheekeeyo qisadayda. Waxaa maalin maalmaha ka mid ah u soo jeestay in aan aado gurigeena, kaasoo ku yaalay meelo buuro ah. Waxaa guriga iiga sii horreeyay reerkayga, iyagoo aaday guriga intaan anigu ku maqnaa shaqadayda. Waxaan hilmaamay inaan sheego anigu waxaan ahay dhakhtarad xagga qalliinka ah. Waxaan ka shaqeeyaa isbitaallada kuwa magaalada ugu weyn, waana waxa iga dhigay inaan reerkayga kasoo daaho. Waxaan ku jiray qalliin aan ku sameynayay mid ka mid ah bukaanadayda. Anigoo waddada maraya ayaa waxaan arkay wiil yaalla laamiga jilidkiisa. Gaarigayga ayaan baakintay, waxaana u soo cararay dhankiisa si aan u fiiriyo waxa hayo. Markii aan u imid ayaa waxa aan arkay isagoo ay korkiisa dhan ku dhooban tahay dhiiqo, waa oona suuxsanaa markaas. Waan soo gediyey, waxa aan u soo jeediyey dhankayga. Waxaan u dhowaaday si aan u ogaado in uu neefsanayo. Markaas ayuu waxa uu ii dhahay isaga oo hoos u hadlaya, waxaad soo gashay gacantayda. Isla markiiba waxaa geesahayga ka imaaday koox dhalinyaro ah si ay aniga markay i soo gaareen dhankayga ayaa laba ka mid ah waxa ay iga xirxireen gacantayda, halka mid ayaga ka mid ahna uu wejiga ii geliyay kiis madow si aanan u qaylinin. Anigu waan yaabanaa, waxaana isdhahayay maxaa meeshan ku keenay. Isla markiiba waxa ay ii wadeen dhanka keynta. Waxa ay isii wadaanba waxa ay i keeneen meel aanan aniga garanaynin. Markii ay isii wadeen ayaa mid ayaga ka mid ah waxa uu dhahay, waxaan geynaynaa meel annaga sir noo ah. Waxaan wici doonaa reerkeeda si aan uga dalbanno madax furasho lacag ah. Midkii kale ayaa soo booday, waxa uu dhahay, kuma aanan heshiinin arrintaas annaga, waxa aan ku heshiinay in aan gaarigeeda ka xadno, ayadan aan iska fasaxno oo keliya. Midkii kale ayaa yidhi, war 2 shimbir hal dhagax ku dil ayaan wadnaa, naga aamus. Uma jeedid miyaa dharka ay xiran tahay ee gaarigeeda si uu qaali u yahay? Hubaal waxa ay haysataa lacag, reerkoodana waa taajiriin. Ilaa aan ka soo gaarno goobtooda sirta u ahayd, waxaa naga daba imaaday qaybtii kale oo hartay afduubayaashii. Waxa ay bilaabeen dood ku saabsan sida ay iga yeeli lahaayeen aniga. Waxay doodaanba ilaa ay doodooda kor u kacday. Mid ka mid ah ayaa diidanaa, waxa uuna dhahayay iskumaana waafaqin. Waxaan ku heshiinay in aan gaariga ka qaadano ayadana fasaxno. Sidaan waa qalad ayuu dhahayay, halka kuwa kalena ay diidanaayeen fikirkaas. Mid ka mid ah iyaga ayaa ii soo dhowaaday, waxa uuna dhahay aabbaha magacii. Ku kale ayaa dhahay looma baahno, waxaan helnay kaarkeedii, waxaana dhalay ninka ugu taajirsan magaalada. Kii kale ayaa boodbooday, waxa uuna dhahay waxaan heli doonaa lacag aad u badan, maanta waa maalinta nasiibkeenii. Wuxuu dhahay waqti ma hayne, ka fura oo aabbaheed la hadla. Ku kale ayaa iga furay, waxa uuna i dhahay ma kula tahay aabbaha in uu ku furan doono? Anigu waxaan ka fikirayay saan uga faksan lahaa. Iyaga ayaa fiiriyay, balse ayaga waxa ay wateen kulligood maas, wejigoodana ma aqoonsanayn. Markii aan fiiriyay guriga aan ku jiro, waxaan ogaaday in gurigan yahay guri laga guuray kal hore, oo uu yahay guri aan la imaan doonin. Waxaa fikirkayga gooyay hogaamiyahoodii, isagoo ku qayliyay ii keena moobilkeedii. Moobilka markii loo keenay ayaa uu baarbaaray ilaa uu ka helay nambarka aabbahay. Markuu wacay ayaa waxa uu u furay sameecadda. Aabbahay markii uu qabtay ayaa wuxuu dhahay, ku aaway gabadhaydii, waxaan taagannahay meesha qodada, waana ku sugaynaaye. Wuxuu ku dhahay gabadhaada anaga ayay noo afduuban tahay, waxaana lagaaga baahan yahay lacag. Haddii aad lacagtaada keeni weyso, iska ilow inaad dhashay gabar. Isla markiiba moobilka aabbahay waa uu ku jaray. Midkii kale ayaa dhahay, war maxaad badhownimada ku fashaa? Soo gaari kamaada qaadan, maxaad haddana aabbaheed u xujeynaysaa? Wuxuu dhahay aamus doqon yahow, waxaa kaa qaldanaa aniga oo kugu soo diray tiimkeena. Waxaa bilaabatay isdagaalkoodii, ayagoo mid walba midka kale u muujinayay in uu fikirkiisa saxan yahay, ilaa ay ka gaartay gacan. Markii ay isku boodeen ayaa kulligood waxa ay u kala safteen labada dhinac, ilaa uu ka dhaco dagaal weyn. Waxa ay wada aadeen kulligood bannaanka si ay isu soo dagaalaan. Waxay iga tageen keligay aniga oo helay fursad aan ku fikiro si aan uga baxsan lahaa meesha. Kadib markay u baxeen bannaanka, waxay istaageen meel aan ka maqli karo codkooda. Waxay isdagaalayeen oo isku qaylinayeen ilaa aan ka maqlo cod xabad. Xabadda markii ay dhacday ayaan anigu isku naxay, waxaana aaminay in ay i dili doonaan. Kadib waxaa soo galay ayagoo wadaan saaxiibkoodii diidanaa in aabbahay lacagta laga qaato. Waxa uu ka dhaawacnaa garabkiisa. Ninka kale ayaa waxa uu dhahay, soo adiga dhakhtarada ma tihid, kaalay daawey ninkan. Waxaan weydiiyey inay haystaan sanduuqa daawooyinka. Wuxuu ugu dhahay, ma waalan tahay, meeshan waa meel keyn ah, mana yaalaan wax lagu daaweyn karo qofkan xanuunsan. Waxaad isku daydaa inaad ku daaweyso waxa kale oo aan heli karnaa anaga.
Waxaan ku dhahay haddii aadan haynin waxaad ii keentaan maqas iyo maro. Maqaska iyo marada ayay ii keeneen. Waxaan ku dhahay qabta gacantiisa asaga. Aad ayuu u xanuunsanayay. Waxaan ka soo saaray xabaddii aniga oo ku duubaya marada gacantiisa. Markii aan xabadda ka soo saaray ayaa ayaga waxa aan ka codsaday inay i siiyaan biyo aan isaga dhaqo gacmahayga. Saaxiibkood ayaa ugu baaqay in uu i geeyo ceel ku yaalla bannaanka. Waxa uuna dhahay qaadkana taxaddar inay faksato ha isku dayin. Markii aan baxay oo gacmahayga iska dhaqay ayaa ninkii la i soo raaciyay waxa uu i dhahay waa inaad meeshaan ka baxsataa inta ay ku mashquulsan yihiin saaxiibkeen dhaawaca ah. Hana soo fiirin gadaasha. Waxaadna orodaa orodkii kaa. Waxaan weydiiyey sababta uu ii caawinayo. Waxa uu i dhahay aniga ayaga ayaan ka baqayay ma ahayn. Kuma raacsanin fikirkayga sida saaxiibkay oo kale. Haddii aan ka hor imaadana waxaan ka baqayaa inay i dilaan. Waxaan ku dhahay ma hilmaami doono abaalkaaga. Waana u mahadceliyey. Sidoo kale waxaan soo orday waxaana ka soo orday meeshii. Waxaan soo dhex qaaday keymaha anigoo aan soo fiirinin gadaasheeda. Aad ayaan u ordayay anigoona ogeyn meeshaan u ordayo balse waxaan ogaa inaan ka baxsan karo ayaga. Isla markiiba waxaa iga daba imaaday laba ayaga ka mid ah. Waa ay ordayeen ayagoo eedeynaya saaxiibkeedii soo fasaxay aniga. Waxa uu dhahay waa nin qalbi fiican waa moodayay inuu fasaxi doono. Wuxuu dhahay adiga ayaa ka dambeeyay waayo adiga ayaa nagu soo daray tiimkeena. Wuxuu dhahay gabadha way faksatay xilligan waa inaan bedelnaa goobteena si uu booliiska noo ogaanin. Markii aan ogaanay inay ayaga baxeen ayaa waxaan soo dhuuntay anigoo aayar u socda waxaan isku qarinayay keymaha. Ilaa aan ka soo cararo waxaan soo gaaray guri. Markii aan soo gaaray gurigayga ayaa waxaan ku gargaraacay albaabka. Waxaa iga furay aabahay. Markuu i arkay ayuu farxay waxa uuna i siiyey hab. Waxa uu i dhahay gabadheeda aad ayaan kaaga walwalay. Ma waxaa kugu dhacay wax dhibaato ah? Kadib waxaa nagu soo biiray hooyaday iyo walaashay ayagoo i weydiinaya xaalkayga. Waxaan dhahay anigu waan fiicanahay. Waxna ma qabo laakiin waan daalanahay. Waxaan iin sheegi doonaa sheekadaas markii dambe. Wuxuu i dhahay maadaamaad noo imaaday waa inaan wacaa booliiska. Waan ka celiyay waxaan dhahay dad booliiska wacdo waxaa ku jiro wiilka fiicnaa oo aniga isoo fasaxay. Asaga ayaana la qaban doonaa. Markii aan uga sheekeeyay sheekada aabahay ayaa waxa uu dhahay wiilkaas waa wiil fiican. Waxa uuna naga mudan yahay inaan u mahadcelino. Wuxuu i dhahay haddii saas tahay waan iska daynayaa. Waxaan dhahay haa waxaa laga yaabaa inay tahay dembigooda ugu dambeeyay. Hubaal waxaa u geysay lacag jecel arrintaas. Wayna dhamaatay sheekada.